booliska magaalada Multan ee gobolka Punjab ee dalka Pakistan ayaa baaritaan ku wada dad la tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen dilka Allah u naxariistay marxuum Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cigaal oo ka mid ahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Pakistan oo meedkiisa laga helay qaybta la seexdo ee jaamacadda caafimaadka ee Nashtar. Dr. Cabdiraxmaan oo ka mid ahaa ardayda Soomaaliyeed ee wax ka baranayay qaybta qaliinka jaamacadda caafimaadka ee Nashtar ayaa isaga oo la gowracay meedkiisa laga helay suuli ku yaala hoolka Jamal Bahuta oo ah halka ay degan yihiin dhaqaatiirta wax ka barata jaamacaddaasi. waxaana baaritaan ay sameeyeen laamaha amniga magaalada Multan ay ku soo xireen dhaqaatiir ay wada degnaayeen Dr. Cabdiraxmaan oo uu ka mid yahay Dr. Cabdilcasiis oo ah muwaadin Soomaaliyeed iyo dhakhtar kale oo Pakistaani ah. dhanka kale wafdi ka socday safaaradda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ee dalka Pakistan oo horkacayay kusimaha safiirka safaaradda mudane Sharwa Cabdullaahi Ibrahim ayaa gaaray goobta lagu arkay meedka Dr. Cabdiraxmaan. waxaana kusimaha safiirka safaaradda mudane Sharwa oo kulamo la qaatay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata magaalada Multan maamulka jaamacadda caafimaadka ee Nashtar oo ah halka lagu arkay meedka muwaadinka Soomaaliyeed iyo waliba hay'adaha dambi baarista iyo booliska magaalada Multan ee dalka Pakistan. wuxuuna si gaar ah uga xog wareystay hay'adaha amniga sida wax u dhaceen iyo halka ay hadda baaritaanka marsiinayaan, isagoona sidoo kale faray inay baaritaan dhammaystiran ku sameeyaan dilka muwaadinka Soomaaliyeed iyo inay u cadaalad falaan muwaadinka kale ee u xiran kiiskan. dhanka kale mudane Sharwa kusimaha safiirka safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Pakistan oo kulan la qaatay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda caafimaadka ee Nashtar Dr. Rana Altaf Ahmed ayaa kala hadlay arrimo kala duwan oo ku saabsan amniga iyo waliba badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacaddaasi iyo sidii baaritaan dhammaystiran loogu sameyn lahaa dhimashada Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cigaal. si kastaba ahaatee dhacdadan argagaxa leh ayaa ah mid ugub ku ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Pakistan. walina jawaab rasmi ah lagama helin geerida marxuum Dr. Cabdiraxmaan walow hay'adaha amniga dalka Pakistan ay wadaan baaritaan la xiriira arrintaani. maxamed yuusuf xaaji ibraahim maxamed kaske warbaahinta qaranka dalka Pakistan.